kabacdi ilaahay ayaa mahad iska leh galabtana keenay halkan annagoo u joogna xoreynta qawaariijtii meeshan ummadda dhibaatada ku haysay islaamka ahayd annagoo joogna galabta meesha la yidhaahdo qosol tire oo ka tirsan hoostaga degmada xaradheere una jira 50 kilomitir ayadoo ciidamadu saaka ay la soo wareegeen soo qabteen 70 kilomitir hubyo ka soo baxay ilaa 70 kilomitir soo qabteen waxay la tahay wax dambe hadda sii hare ma jiro waa gabagabay taagan tahay war dambe iyo qawaarij ummad ay dhibto waa ogna dhibaatada ummadda ay ku hayeen wax sharci islaamka ay ku baan urtaan ma wax kale kuma hayn maxaa yeelay shantii lix shay oo ilaahay uu tala galay in ummadda laga badbaadiyo ama la ilaaliyo ayay ku tunteen ay ka mid tahay diinta nasabka maalka nafta waa inta nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu yiri waman qutila duuna nafsihi fa huwa shahiid waman qutila duuna maalihi fa huwa shahiid lixdaas qofkii asagoo u dagaalamay lagu dilo waa shahiid ayadoo saasay intaas ay banaystay qofkas inay dhiiggeeda banaystaan maalkeeda banaystaan ummadda ilaahayna ay ku been abuurteen oo diinta ay ku been abuurteen sidaas darteed waxaan leenahay waa soo dhammaatay dulmigaas waa la isku fahmay dadku way fahmeen qof aan fahmin oo aan ogeyn ma jirto waxaan leenahay ilaahay ugu toobad keena isu soo dhiiba haddii kale iska dhac ciidamada la iska dhacsho waxaan uga mahadcelinayaa meesha mahadda koowaad dowladda federaalka oo u qalab qaadatay iyadoo wax badan aan joogin inay islaamka ka xoreydo iyo midda galmudug iyo dawladda Soomaaliya inteeda dhanba mas'uuliyiinta joogta waana waajib ka saarnaa maxaa yeelay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri kullukum mas'uulun wa mas'uulun can ra'iyati qof kasta waa mas'uul waxaana laga su'aali doonaa wixii la raaciyay dadkaana maamulka iyo dawladahana waxa la raaciyay dadkooda inay dhibaatada ka dulqaadaan dadka deegaanka waxaan ugu baaqaynaa ha ka baqinina ha moodinina in galabta inta meeshan la iska laabanay waa dhamaatay waa ogtiin tii xamar ka soo bilaabatay ceel dheer ay soo marayda middaana insha Allah mar dhow xaradheer inaad ka rajaynaynaa ha ka baqinina cadawga iska dulqaada naf iyo maal waxa leedihiin hura waa ogtiin dhibaatada ay geystaan nin gabadhiisi la yiri naagtiisi la yiri 2 saac ahmeena keen aan waxaan barayaa shariicada u banayda ma jirto iyadoo naag wax bari karta in naag islaameed oo wax baro ama ninkeediyo sheekha uu yiraahdo waxaan barayaa ase waxay ku daran waliba 2 saac Soomaalidu waxay tira ciyaar xal loo tumaa habeenkii hadaa wax loogu dan lahayn 2 saac hadana wax barayna ay yiraahdeen ee naagta la soo diro maalkii waa qanimo yiraahdeen sikadi oo ilaahay jideeyay hal bil waxa laga dhigay in 12 bilood bil kasta la yiraahdo saka la qaadaya waxdaas diintaas waa garanaynaa waa diintii ka soo bilaabatay sayid cali lagu dilo way oo yiri maxay igu la dagaalaysan oo yiraahdeen waxa rabnaa in kitaabka aan ku xukunno kitaabka aan ku xukunno ayaan kugu la diriireynaa maxuu sayid cali uu jawaabay radiyallahu anhu hiya kalimatu alhaq yuraad bihal baadil uu jawaab waa kelimo xaq kitaabka wadanka lagu xukumo laakiin tiinu waa baadil nin naagtiisa la qabsanayo oo gabadhiisa la qabsanayo oo xoolihiisa la cunayo ilaa kitaaban ka wadnaa hada waxay u tahay hada midda yahuudu ma qabto iska daa mid islaami mid ilaahay subhanahu wa ta'ala soo dejiyay iska daa waxaan ugu baaqaynaa ha ku kasoominina way dhamaatay qawaarij awoodeed iyo warka dama waa dhamaaday ayagana waxaan leenahay si soo dhiiba inta ilmaha la qaltay ilaahay u toobad keena si soo dhiiba kii aan soo dhiibi karina dagaal ha u diyaar garoobo cayaar dambe iyo war dambe ma jirto haddana waxaan ku soo dhaweynaa waana sii soconaysaa shaqada insha Allah haddana waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka. Wassalaamu calaykum waraxmatullaah.